cashirkeena waxaan ku baranaynaa sidaad ugu jawaabi lahayd ama problem walba ugu xalin lahayd codinga gaar ahaan Pythonka. Talaabada koowaad aan qaadayna waxa weeye inaan qeexno problemka aan rabno inaan ama su-aasha rabno inaan xalino. Qalin iyo buug qaata adigoo aan coding waxba bilaabin, step by step bullet points ama 1 2 3 u qor. Markaas ayaa waxaa fahmaysaa waxa la rabo in la qabto. 6 qodob ayaan ku qeexay. waxaan raba inaan u ka koobnaado passwordkan adag aan rabo inaan sameeyo. Cad weli wax aan coding aan qortay ma jiraan, waa uun qeexid aan qalin iyo buug qaatay aan qoray iyo su-aasheedii aan qortay oo problemka rabo inaan solve gareeyo. Intaa kadib waxaan sameynayaa uma baahna inaan wax walba kasoo bilowdid from scratch, inaad adigu hindistid wax walba lagama baahna. Qof hore ayaa horey u qabtay. Marka waxaad number 1 kula talinaya inaad aadaan internetka, Google-ka soo furta, waxaa ku qortaan su-aashii aad rabtaan inaad xalisaan. Google-ka waxaan ku qoray Python check strong password. waxa weeye Python waa luqadii aan inay Google-ka u aaday inaan waxaan raadinayo Python ku saabsan yihiin. Kadibna wuxuu ku raaciyay inaan raadinayo password adag si loo check gareeyo. Marka Google-ka wuxuu ii soo bandhigay website-kan uu soo hormarsiiyay Stack Overflow. Stack Overflow waa website-ka ugu badan ee isticmaalaan dadka coding-ka sameeya gaar ahaan Python-ka. waxaa ku jira millimis oo su-aalihi jawaab ah. Su-aal walba oo qabtid jawaabteeda waxay u badan tahay in qof horey halkan ugu qoray. Marka xagan waxaan kanaa ku dhufanayaa validation password kaasa ugu dhow waxaan raadinayo qiyaastii. bal aragno qofkan su-aashaan buu weydiiyey. Marka halkan Stack Overflow saan buu eg yahay. Su-aasha qofkan weydiinaya waxa weeye wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan sameeyo waxaan rabnoo kale inaan sameyno wax password ka kooban ugu yaraan 8 character oo ay ku jiraan hal number iyo capital letters iyo. Marka wuxuu soo dhigay sample of code uu sameeyay. Marka wuxuu leeyahay wax iga khaldan ma aqbal hal ay saxo budget ka codsanaya. Marka answers ka hoos baa la yimaadaa, halkan bay ka bilowmaan. Answers baa ugu horeysa. 11 jawaabood ayaa laga bixiyay qofkaas su-aasha soo weydiiyay oo arkaysaan jawaabiyo kuwaas. Marka jawaabta ugu horeysa badanaaba ugu macquulsan oo dad kala duwan adduunka geesiisa kala duwan way jooga way. Tan hadda waxaa haystaa 11 qof ayaa ku raacay oo tigsiyay oo midda ugu approval-ka badan ama la isku raacsan yahay ama lagu kalsoon badan yahay bay aad u muuqataa. Isha wada mari qasamaha midda koowaad mar walba inay noqoto midda raadinaysa jawaabta raadinaysa saxda ah inay noqoto. Hadda marka waxay noqonaysaa waa sidii aan raadinayay. Wuxuu isticmaalayaa qofkan isticmaalay while loop-kii aan soo baranay. Wuxuu leeyahay wuxuu soo qaatay password input buu sameynaya oo waxaan rabno in input lagu sameeyo qofka inaan weydiino dadka userska inaan weydiino inay input gareeyaan ama password sameeyaan. waxaan rabnay inuu 8 xabo ka koobnaado. Ani waxay la eg tahay tan mid macquula. Marka saan kale usoo koobiyeysanaysaa. waxaan kusoo koobiyey Colab-kii aan ku qoranayay waatan. hadda waxba kama bedelin qofkaas uu coding ku sameeyay. Shift enter haddaan dhaho waxaan arkaa inay jirto khaladaad ama error buu ii soo qabtay. Errorkaas wuxuu leeyahay marka errorka waxaa ku ogaanaysaan wuxuu ku leeyahay calaamadda ma fiirinaysaan kana horta ka bilaabsan name error baa jira. Marka wuxuu leeyahay row input is not defined. Coding uu kuu sheegay wuxuu ku leeyahay row input-ka oo halkan ku jira line-ka 5aad ayaa wax ka khaldan yihiin oo defined ma aha. haddaan fiirino marka dib u noqdo code-keenii row input buu diidan yahay wax ka khaldan yihiin. waxaan horey usoo baranay inay jiraan wax la yiraahdo Python built-in functions. kana saa u jeedan waa function aan Google kirayno haddana waxaan Python built-in functions intaan ayay ka kooban yihiin. aan ka fiirino input. Okay, input waa kan function saan u eg yahay. Row lama socoto. Ciladu marka waa fahanay inay tahay oo koodku nagu haysto rowgan aan ka tirtirno
rowgii markaa tirtirno aan dhahno haddana shift enter. Okay, hadda ujeedaan oo noo shaqeeyey. waxaan ku qoraynaa, wuxuuna weydiinayaa halkan ka aragtaan, wuxuuna weydiinayaan geli passwordkaaga. Marka haddaan dhaho password aan qoro ama waxaan doono qoro, uu noo shaqeeyey waa ujeedaan. wuxuu leeyahay make sure inuu number ku jiro, waa kan. kan goowaad 8 waa ka badan. haddaan hadda 8 ka yareeyo, 8 waxyaalood oo intaa kaliya geliyo, oo wuxuu leeyahay xaggan akhriya make sure passwordka inuu ugu yaraan 8 letter ka kooban yahay. marka waa saa rabnay uu noo shaqeeyey. aan dib ugu noqono koodkii aan kasoo koobiyeynay, koodkii Python aan kasoo koobiyeynay Stack Overflow. waxaa ka mid ahaa oo qofkan isticmaalay inuu soo import gareystay waxaa la dhaho modulekan RE oo loo soo gaariyey, waxaa loo soo gaabiyey regular expression, I think so, yeah. waxaa loo soo gaabiyey regular expressions halkaa u arkaysaan. marka regular expressionskan RE-gan meeshan ayuu isticmaalay oo ah inuu noo qabto inuu wixii aad qofka weydiinaysid oo input-ka ah uu passwordka ah inay ku jiraan nambaro. wuxuu kaloo noo qabanayaa inay ku jiraan, uu noo search gareeyo xaruuf capital ah. waxaa kaloo arki doontaan waxaa uu isticmaali doonaa inay noogu jiri doonaan xaruuf small letter oo kaleeta. marka waxaa ogaanay inuu noo shaqeynayo sidii aan rabnay uu yahay koodkan. kasoo koobiyeynay anagoo waxba weyn qabanin, qofka kale koodkiisa aan isticmaalnay. waxaa kaloo marka ku darsanaynaa shuruudeeni ka mid ahayd inuu passwordka aan sameynayno uusan ka badan 25 waxyaalood. marka wax kale ma sameynin, tan ayaa soo koobiyeystay, saan ayaa usoo koobiyey, xaggan ayaan kusoo koobiyey. kadibna waxaan raaciyey elif, halkan if keliya taale, elif baan raaciyey. meeshaan ka yarta ahayd waxaan ka dhigay ka weyn 25. macnaheedu waxaa weeye while loopkan wuxuu true noqonayaa ama sax noqonayaa markii aad passwordka gelisid uu ka bato 25 xaraf. waxaa u sheegtaa qofka passwordka sameysanaya inuu waxa usoo qortaa sidaan. passwordkana shuruudiisa waxaa ka mid ah inay 25 xaraf ama waxyaalood ugu badan la gelin karo, uusan 1000 xab ama 100 xab usoo qori karin. inta kale waa intuu qofkii hore qoray, wax kaloo aan ka bedelay ma lahan. xaggan haddaad timaadid haddana waxaan soo koobiyey tan oo ninkii qofkii wuxuu doonaba ha ahaadee aan kasoo koobiyeyn xagga uu qoray baan halkan haddana kusoo koobiyey. meeshaan ahayd capital A to Z oo capital haddana waxaan ka dhigay A to Z small letters. wax kaloo aan ka bedelay ma lahan. kadibna waa kan shuruudeeni marka 6 waxyaalood aan qoranay. midda koowaad 8 inay ka yar tahay, 25 inay ka badan tahay, waa number 2. inay number ku jiraan, capital iyo small letter ku jiraan. marka problem ka solve gareynaysa marka ugu horeysa inaad ka fikirtid ma function ma noqon karaa, ma class ma noqon karaa. marka classku waa wax hawl badan buu noqonayaa, laakiin tanoo kaleeto problemkan hadda aan xoleynayno waxaa ugu fiican oo la isticmaali karo waa function. shuruudeeni 6 waxaa ka mid ahayd inay ku jiraan walxaha gaarka ah sida ad ama calaamada dollarka ama poundka ama waxaas oo kale inay ku jiraan. marka waxaan sameeyey si taas loo sameeyo laftigeedu ma xasuusnayn, haddaan run idiin sheego waa google gareeyey. marka waxaa ii soo baxday google-kan kan waxaan ku qoray sidaan Python password special characters baa ku qoray. qiyaas marka waxaa noo soo baxay Stack Overflow haddana waxaan ku dhuftay kan kama helin si uu sharaxayo. haddana waa ka noqday, haddana kan kalaan fiiriyey. kan markaan arkay waxaa qanciyey inkasta su-aasha jawaabtan ninkan tan waa su-aasha qofku weydiinayay
laakiin waxaa i qanciyey jawaabtan inkastoo aysan cidna u codaynin. laakiin tan ayaan tijaabiyey, tanaa soo koobiyeystay. haddana google-ka aaday special characterski ayaan google ku qoray. waxaan ayaa iisoo baxay. waxaan rabaa inaan helo kan ayaa haddana ku dhuftay. qofkan ayaa websitekan ayaa moodaa inuu wax badan oo special character u hayo oo ay kamid yihiin tan iyo spaceku xataa special character ayuu kamid yahay ama walxaha gaarka ah iyo kuwan. marka halkan buu ku taxay kana soo koobiyeystay. intaan kore waa intii hore usoo aragteen. waxaan kaloo qortay alifki ayaan soo qortay anoo kasoo koobiyey koodkan aan ka helay halkan. anoo kasoo koobiyey kan ayaa xaggan kusoo koobiyeystay. waxaan isticmaalay wax alle wuxuu meesha ku qoray marka laga reebo special. meeshan isa waxa ugu qoran special character horey buu qofku u sameeyey, marka anigu ma rabo inaan tanoo kale sameeyo. waa soo koobiyeystay, internetka ayaan kasoo koobiyeystay. waxaan meeshan ayaa geliyey quotationkaa saaray. inta kalena waa inta kale uu qofka uu ku qortay Stack Overflow. waxba kama bedelin, waxba kale ma qaban. Soomaali unbaa bedbedelay. halkan waxaan ka dhigtay meesha ahayd validate ay ahayd ayaan waxaan ka dhigtay user password aan usoo gaabiyey. intii kale Soomaali ayaa meelaan ka dhigtay. haddaan hadda kan dhaho run dhaho sidoo kale ayuu Soomaali ahaan nagu weydiinaya. geli password buu ii weydiiyey. waxaan passwordkeena ka dhiganaynaa hadda magacayga oo kaleeta maxamed. saa ogtihiin waxay ka badan tahay, waxay la eg tahay 8 xaraf. marka wuxuu ku leeyahay waa inuu hal number ku jiro. halkan waa in uu ku jiraan ugu yaraan hal number maxamed. maxamed hal baraacinayay. haddana wuxuu nagu qabsanayaa inuu ku jiraan xaraf waaweyn oo capital ah. mta ka dhigayaa capital. haddana hal numberkiina waa raacinayaa. weli wuxuu nagu haystaa waa inay ku jiraan ugu yaraan hal wax gaara, walxaha gaarka ah. marka cad baraaciyey. wuxuu iisoo qoray passwordkaaga waa sidii la rabay. marka su-aashii aan la imid ama problemka aan la imid jawaabtiisii waxaan kasoo helay 90% ugu badnaan internetka anoo isticmaalaya google-ka. waxaan idin xaqiijinayaa in qofku hilmaamayo muddo markii la joogo waxyaalaha qaarkood. xataa waxaa ilmaamaysa while in true la raacin jiro kaleeto. marka waxaad samaysaan google kareeya. google-ka ayaa saaxiibkiina koowaad noqonaya. gaar ahaan wuxuu idiinsoo gudbinayaa Stack Overflow website-kan ah, website aad caan u ah oo jawaab walba ay ku jirto. intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa qaybteenaan.